الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد waxaan isugu ku yeedhnay inaanu si kooban uga hadalno arrin ugub ku ah hannaanka dimuqraadiyadeed iyo nidaamka dawladnimada dalka soddon sano ee Soomaaliland jirtay ficilada hadda soo baxaya ee ku kacayso xukuumadda talada haysa waa kuwa baalmarsan ilaalinta nidaamka amniga ilaalinta iyo xaqdhowrka iyo sharafta xisbiyada qaranka iyo wadajirka ummadda waxaad ku warqabteen in maalinkii shalay ahaa gaariga gudoomiyaha xisbiga suuqa bartankiisa wiish lagaga dhex qaaday ciidanka ilaalada gaarka waa gudoomiyaha xisbigana qaar ka mid ah xiryahoodii dib looga yeelay sababta waxaas ku dhaceen markaan u dhiba galnay aan isku daynay bal inaan xog rasmi ah ka helnana waxa u muuqataa xukuumaddii mas'uulka ka ahayd amniga dalku inay ka bareerayso dariiqa jeexista fowdo dalka ka dhacda gudoomiyaha xisbiga wuxuu leeyahay ilaalo u gaara oo qaabilsan sugidda amnigiisa ilaaladaasi waxay leeyihiin kana tirsan yihiin ciidamada qalabka sidee dalka ciidamo beereed ma aha waa ciidamo isugu jira ciidamada bilayska iyo kuwa militariga waxa loogu deeqay direys iyaga u gaara oo ay xidhaan direyska muwaadin reer Soomaaliland ayaa ugu deeqay waxaana loo soo keenay magaalada Saylac wayna ka doonteen taliska ciidanka guud ee Soomaaliland waraaqdu ku amray in la soo siiyo direyska ciidamada gudoomiyaha ilaalinaya wata waraaqdii taliska ka soo baxday oo 16 direysa oo ay soo qaadanayeen wasaaradda maaliyadda amarkay farayso qaybta kastamaduna wadka oo agaasimihii guud baa isaguna ku seexa labada waraaqoodba waxay cadeynayaan in sharciga dalka ay u hoggaansameen ciidanka ilaalada gudoomiyuhu nasiib darro waxa dhacday markay qalabkii soo qaateen iyo direyskoodii ayaa lagu dhex qabtay bartanka magaalada iyadoo tixraac iyo reference-kooda iyo goobtay ku sugan yihiin iyo cidda ka tirsan yihiin bal la garanayo cidda ilaalinayna oo gudoomiyihii mucaaradka ah xafiiska ka tirsan yihiin waa xafiiskii xisbiga guriga joogaana oo guriga gudoomiyaha niman baadiya oo hal looba ma yahayn waa niman ciidankii qaranka siday ee qaranka ka tirsan waa niman identity-gooda iyo address-kooda iyo goobtay ku sugan yihiin la garanayo amar waxa lagu bixiyay iyadoo sharciga dalka ay ilaaliyeen oo hay'adihii dalka u qaabilsanaa ama military ha noqoto dalka amnigiisa mas'uulka ah ama wasaaradda maaliyadda ee cashuurta qaadaysa ha noqotee labaduba ay ogolaansho ka haystaan in bartanka suuqa lagu qabto kaga sii daran waxa dhacday in gaariga gudoomiyaha mid ka mid ah gawaadhida gudoomiyaha oo ciidankiisu ay wateen bartanka magaalada wiish lagaga dhex qaado وحرده برمدك la geeyo gudoomiyuhu xaq u leeyahay in amnigiisa la sugo sidoo Muuse Biixi xaq ugu leeyahay in amnigiisa la sugo gudoomiyuhu xaq u leeyahay in gurigiisa la ilaaliyo sida guriga Muuse Biixi loo ilaaliyo xasaanadu Muuse Biixi dalka ku leeyahay mid la mid ah ay gudoomiyaha cirana ku leeyahay ilaalinta nabadgelyada gudoomiyaha ilaalinta nabadgelyada mucaarad iyo muxaafid ilaalinta nabadgelyada saxaafadiina waxay ga duubaysaa ilaalinta haybada qarankan cidda ka mas'uulka waa xukuumadda hadba talada dalka haysa inta kadib waxa dhacday inaan wali wax jawaab laga haynin xukuumaddii talada dalka haysay
oo ku saabsan arrinka anshaxa sharafta haybadda iyo xasaanada xisbinimo iyo gudoomiyahaba baalmarsan ay ku kaceen nidaamkan maanta dalka taladiisa hogaaminaya xisbi ahaan wad ka warqabtaan mar kastaba mudnaanta inuu xisbigaygu siiyo isu haynta dalka iyo dadka astaanta xisbigu inay tahay ilaalinta nabadgelyada isu soo dhawaanshaha shacabka Soomaaliland iyo isku wadidooda gudoomiyaha talada xisbiga haya 13 sanadood wuxuu u shaqeynayay qaranka wuxuu ahaa gudoomiye baarlamaan tacab uu qaranka galiyay wadun ka warqabtaan Cabdiraxmaan Cirro maalintii qaraareyd ee Soomaaliland ay isku wiiqday inuu kursiga madaxtooyada dariiqa ka maray si aan dalkan amnigiisu khalkhal u galin wadun ka warqabtaan Cabdiraxmaan Cirro inuu damac dalkan iyo dadka inuu ku hogaamiyay inuu leeyahay ayna kana suuroobaynin wax fawdo iyo khalkhal gelinaya isku haynta ummadda Soomaaliland ayaan darada laakiin jirtaa waxa cad oo ay tahay xukuumadda talada dalka haysa waxaanu Cabdiraxmaan Cirro diyaar u ahayn inay ku dirqiyaan xukuumadda waxaan u sheegaynaa haddii mas'uuliyadii amniga gudoomiyaha ayadu wakiilka ka ahayd ama ciidankii qaranka ee isugu jiray biliiska iyo militariga ee amniga gudoomiyaha sugay in maanta ka xisbi ahaan aanu ku aaminayn nabadgelyada ammaanka gudoomiyaha oo dadkii taageerayaasha u ahaa ay ilaashan doonaan xasilinta iyo xasaanada iyo xilka gudoomiyuhu hayo iyagu mas'uuliyad ay ka yihiin inuu lagu haleyn doonin nidaamkan xukuumadeed ee dalka maanta taladiisa hay laba waxay qadaf iyo nabar iyo boog hor la ku tahay xanaf xun ay ku abuuraysaa taageerayaasha iyo sharafta ee xisbigu uu leeyahay in hadcad gudoomiyaha gaarigiisa sidii gawaadhida qaraxda oo kale inta wiish lagu qaado birmadka la geeyo oo sharaftiisa la dhowrin waxaan ugu baaqaynaa nidaamkan xukuumadan maanta talada dalka haysa 24 saacadood gudahood inay gaariga gudoomiyaha ku soo celiso raaligelin buuxdana ay ka bixiso ficilka foosha xun ay kula kacday haybadda iyo xasaanada gudoomiyuhu qaranka ka muday saddex waxaan ku dhiirigelinaa taageerayaashayada waxa la idinka rabaa oo la idinku xanxanteynaya xuma aan qalbigiina ku jirin in la idinku abuuro laakiin ma tihidin idinku kuwa qaranka bartooda laga soo dhacay waxa gudoomiyuhu uu astaan idinku yahay isku haynta iyo wadida iyo sharafta shicibka Soomaaliland wuxuu damac kaga jiraa hayaanka iyo halganka dheer ugu jiraa hogaaminta dalka hamigiisu maanta xifiltan taagan baaha iyo xanaftay abuurayso xukuumadan hadda joogta ee faashilka ku ah sugidda nabadgelyada dadka waxay dikaydu ku baaqaynaa inaydun qaranka qaybtiina haysaan inaydun astaanta nabadgelye ee gudoomiyuhu ku suntan yahay aydun ku ilaalisaan qaranka wana bartiina looga soo dhigay ugu dambayn haddii tallaabooyinka noocan ay sii socdaan oo xukuumaddii maanta laga sugayay inay xal ka keento mashaakilka dalka ka taagan ahankeedu ku soo meeraysto inay xumayso ama ay xagato xasaanada gudoomiyaha inaanu xisbi ahaan si dul qaadan doonin mar dambana tallaabooyinka noocan oo kala ah aanu aqbali doonin aad baan idinku mahadnaqaynaa arinku wuxuu u dhacay sida aad arkaysaan waydan mahadsantihiin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعي ويا سياسة بحق صعدة تلفزيون بريق أفريقيا. أرنتن ملسو عسيس لامها أمانك مسؤولين لامها أمانك أرنتن قارق قدوميها ويش كلو قدح قاضي ودوينك. تم حلسو عسينا تلسكي جودة عيدا كقرن كجمهورية الصومال لامبا أمر كبيعي أو أمني جودة دلك وكيلك. هو سارد أرميها جودة هي النظام كحكومة دوا وحي كوقنعين.
in diriiska loo soo qaado oo waraaqdii waa tan dee saxaafadan bilowgiiba hordhe ciidan tusa iyagana ka bareeray iyagoo garanaya xafiiska gudoomiyaha oo gurigiisa garanaya oo adreeska garanaya oo ciidanku yahay la yaqiino xisbigu ku yahay la yaqiino in harcad inta wiish gaarigiisa lagu dhax qaadayna birmid la geeyo waa bareer caadi ah oo doonayaan inay ku kiciyaan ummadda oo doonayaan iyagii mas'uuliyadda nabadgelyada ka ahaa inay fawdo iyo nidaam hor la abuuraan cidda dalka mas'uuliyadda ka ah ee nabadgelyadiisa ilaalinaysa ee ay tahay markasta inay tanaasul samayso ee ay tahay wax badan inay xeeriso sida qodobka 730 ee dastuurku dhigayo haybada iyo qaranka mas'uuliyadiisa mas'uulka waa xukuumadda ka bari meena nabadgelyada deena ilaaliso iyada mas'uulka iyada adiga mas'uulka caawada lagu soo dhiciyo hadii lagu dhibayba iyada cashuurka qaado mas'uulka marka way og tahay iyada ka bareeday oo gaariga gudoomiyaha wiish ku qaad marka xukuumaddan oo 6 gobolada Soomaaliland ka talinaysa inaan orano waa bareed wixii procedure sharci lahaad marka horena oo marno waa tan wasaaradda maaliyaddana waanu tagnay oo iyada ogolaansho siisay ciidanka oo tiriiska la soo siiyo taliskii guud ee ciidanka iyo institutionada dawliga ay ku tacalluqaysan waanu kala hadalnay waxa sheegtay oo xukuumadda u baahnaa 20 saacadood ka bacdi gaariga ku socdiyaan ee raaligelin ku bixiyaan haddii ay bixin waayaan gaariga socodka xatalada xigtan qaasanka wato anaga noo gaar afya laba su'aalood oo doonaan ku weydiiyo ciidan qaran baa ilaalinayay gudoomiyaha xisbiga ciidanka qaranka waxa laga maamulaa taliska taliyaha ciidanka qaranka wuxuu awood u leeyahay inuu yeeli karo soo bedeli karo keeninka deyn karo marka waxa sharci u haystaan askariga ilaaliyaha xarun kasta ay ciidanka qaranka iska xadin karo marka taayirmadu miyaanay asoo kaleeyay wixii waajibaadkii caadiga ahaa lagu tahay su'aasha labaad waxa weeye waxaad sheegtay in khalad laga galay gudoomiyaha xasaanadiisa oo dawladdu ka gashay ciidankii ilaalinayay in laga kaxeeyo marka bulshada Soomaaliland baa dal kale bulshada baa xisbi ahaan u cabanaysaa oo u sheegaysaan khaladaadka la ka galay haddana waxaad ku celinaysaa raacinaysaa in taageerayaasha xisbiga ay leedahay way ilaalin doonaan xisbiga haddii saas ku socdo waxbaad saxaysaan mise waxbaad khaldaysaan xisbiga qabaasantahay kuraase markaan anagu leenahay gudoomiyaha amnigiisa cidda ka mas'uulka waa xukuumadda haddii xukuumaddu roolkeeda qaadan weydo ninkani madaxweynuhu isku sharaxay xaq buu u leeyahay ilaalinta amniga waa gudoomiyihii xisbiga ugu weynaa mucaaradka doorashadii dalka dhacday maalintii qaraareed buu dariiqa ka maray haddii xukuumaddu ay ilaalin kari weydo ammaankiisa oo ciidamadii qaranka ee loo asteeyay sida Muuse Biixiba ay u ilaalinayaan buu isna xaq u leeyahay loo ilaaliyo haddii ilaalin weydo dee taageerayaasha xisbiga cidda isaga jecel dooratay baa ilaalinaysa